maskaxdaada kobci maankaaga kori macnaheedu waa murtida ku dhaqan maamuuska diintiyo kana sheegtan maadiga mareegteedu waa naftaada mas'uul ka noqo mansabkaaga ha seegin maskax eebba ku siiyana maqaamkeeda ha diidin kor u qaadaha kaabaha bulshada maan kobci السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب قارئة هذه تامر كوري إذا طبق القناة كان قلنا سبسكرايب لايك شير أند كومنت أنا وذاك أصحاب هذا كنا سيدوا هذا مقال فيديو جينا وعن كسو تشيديننا لبح على ضد أوقف كدك تو عبرش الآن عبرش ما دام إذا شيء أساسي إنه يرسل بني آدم كونه أباهي أنا ولا كستم دام ويا جالي وجد مجدي وعاد ودر قفكي كده أنا أوسن أود ولهن إنه كسو بحصده سي أوجب بدباد أرنكاس أجو kuna xariiqa buugaaga laba shay ama laba xaaladood oo ka dhigta mid cilmi la'aana. Lambar 1 isla weynida waa xaalad xun taasoo soo wajahda bini aadanka oo isku maleeyo inuu dadka kale uu ka fiican yahay taasoo qofka shakhsiga ah oo iska dhaadhicinayo inuu qofkan wax uga fiican yahay ama wax uga sareeyo balse haddii la fiiriyo kama sareeye waa niyadiisa wuxuu ka dhaadhiciyay. haddii aad tiraa qof hebel u tag ama qof hebel waxa isku cilina wuxuu ku leeyahay aniga iyo qof hebel ma isku darajo maniin waa calaamadaha lagu yaqaan dadka isla weyn. lambar 2 xishoodka waa calaamada labaad ee qofka bini aadanka waxbarasho seejida maadaama qofka uu isleeyahay ama saas iyo saas lagu dhahaa marka sidaas awgeed oo la aamusnaana wuxuu qabay. xishoodku ma xaalad oo kibirka keeno balse waa xaalad daciif ka dhigaysa naftaada taasoo aad awood u lahayn qofka wax ku sharaxa inaa wax weydiidid. haddaba ka digtoonow labada xaaladood oo halkan aan kugula soo wadaagnay maadaama ay hor istaagi karaan waxbarashadaadii kaana dhigi karaan qof jahliya. xaaladahan aan hadda kula wadaagayo waxay curyaaminayaan naftaada carabtana waxay ku maamaaday iyadoo ka hadlayda curyaaminta nafta almutakabbir iyo almustaxi laa yatacalamaan. asxaabta qaaliga fiidiyogan haduu ku xiiso geliya like saar ana hilmaamina subscribe noo saarta channelka tani fiidiyoga ku xiga inta kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.